kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamij hor leh. Indhahaaga banaanka ma keeni kartaa daawade imise ayaana keeni kartaa? Jawaabta inta aadan nasiin daawade, bal sheekadan maanta waxa ay ku saabsan tahay nin ka yaabiyo dunida oo indhihiisa banaanka keeni kara ku dhawaad 2 sentimitir. Sida lagu qoray sanadkan 2023 diiwaanka dhacdooyinka adduunka, waxaa rikoorkan haysta nin u dhashay dalka Brazil kaasoo indhihiisa wax badan keeni kara banaanka. Ninkan oo lagu magacaabo Sidney de Cavallo Mosquito ayaa indhihiisa banaanka keeni kara ilaa 1.8 sentimitir. waxaana uu ka yaabiyay dadka ku sugan dalka Brazil maadaama la arkay isagoo indhihiisa ka dhigay sida murqaha oo kale sida laga arkay muuqaal laga duubay. Ninkan oo ku nool magaalada São Paulo ee dalka Brazil ayaa sanadkii 2022 waxa uu ka yaabiyay qoyskiisa iyo asxaabtiisa kadib markii uu sameeyay arrin mucjiso ah oo lagu tilmaamay indha sarcaad. waxay ahayd markii labadiisa il uu banaanka keenay loona maleeyay inuu indhaha beelay, laakiin waaba arrin gooni u ah. kadib intaasi markii ay dhacday, Cavallo Mosquito oo sidoo kale loo yaqaano Tio Chico ayaa waxa uu caan ka noqday deegaanka uu ku nool yahay, halkaasoo dadweyne fara badan ay kula kulmaan. dadkaasi waxaa ka mid ah dhakhtarkiisa gaarka ah oo ku nool dalka India, Dr. Rishi Vardawash oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in Cavallo uu awood u leeyahay in labadiisa il uu banaanka keeni karo ku dhawaad 18.2 milimitir ama 0.71 inji wax ka baxsan godka isha. sida lagu qoray buugga dhacdooyinka caalamka ee Guinness World Record, Mosquito ayaa sheegay in arrintani uu isku arkay markii uu jiray 9 sano. markii hore waxaan tusay arrintan qoyskeyga iyo asxaabteyda kuwaasoo la yaabay kartideyda maadaama indhaha aan banaanka keeni karo, laakiin aniga waxaan isku haystay qof leh weji fool xun waa markaan hor istaago muraayadda, ayuu yiri Mosquito sida lagu xusay diiwaanka dhacdooyinka caalamka ee afka qalaad lagu yiraahdo Guinness World Records. Mosquito ayaa jebiyay rikoor la haystay sanadkii 2007 kaasoo ahaa in ninkii ka horeeyay uu keeni jiray banaanka 1.2 sentimitir indhihiisa. arrintani waxaa sabab u ah aabahay, hooyaday iyo abuurkeyga. De Cavallo Mosquito ayaa u sheegay diiwaanka Guinness World Record. waxa uu intaasi sii raaciyay waa riyo rumowday oo albaabada u furaysa in xirfadeeda iyo kartideyda la sii aqoonsado. indhaha oo banaanka la keeno run ahaantii waa guul bani aadanimo oo cajiib ah. ninkan ayaa ka shaqeeya shirkad sameysa rootiga oo ka sameysa qudaarta taa oo lagu magacaabo Tio Chico Burger. xaaskiisa Egle ayaa ka hor inta aysan isguursan sheegtay in ay ka naxday indhaha saygeeda ilaa markii dambe ay la qabsatay oo ay ka mid noqotay dadka ku farxa markay arkaan. tan iyo markii Cavallo Mosquito uu awooday in uu ka faa'iideysto hibadiisa gaarka ah, waxa uu rajeeyay in uu ka mid noqdo dadka ugu caansan adduunka oo dhan, gaar ahaan dalka Brazil, ayay tiri. si kastaba marka laga soo tago Cavallo Mosquito, waxa kale oo rikoorka xagga indhaha waaweyn ee dumarka wata Kim Goodman oo u dhalatay dalka Mareykanka taasoo hadda degan magaalada Chicago. haweeneydan ayaa bandhig lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 2 November ee sanadkii 2007 waxaa loo aqoonsaday qofka haysta xagga dumarka ee indhaha waaweyn ee banaanka la keeni karo, waxaana ay awood u leedahay in indhaheeda ay banaanka keento ilaa 12 milimitir oo u dhiganta 0.47 inji.